Hello friends, soo dhawaada muuqaalkeennan maanta waxaan ku arkaynaa sida loo akhriyo fariimaha lagugu soo diray WhatsApp-ka ee kaa dhalido qofkii kuu soo diray. Ugu horreyn waxaad soo kicinaysaa Play Store, kadibna waxaad halkaa ku qortaa anti-delete application-kan install ku samee marka. Hadda open riix, kadib batoonka kore on ka dhig allow. ciwaanka sare anti-delete iyana sii fur, open ka dhigtana. Hadda waxaa install garaysaa application-kii kuu suurtagelinaya fariimaha lagu soo diray inuu ku ilaaliyo xataa haddii lagaa dhalido. Soo qor telefoonka labaad, waxaan ka qornay fariinta hello, waxay u soo dhacday telefoonka labaad. waa aragtaa qaybta kore ka soo dhacday. Hadda waxaad soo furtaa WhatsApp-ka telefoonka labaad. halkan waxaa ku aragtaa fariintii lasoo diray hello. waaya telefoonka koowaad ku noqo, fariinta ka delete for everyone. halkan waa aragtaa telefoonkii labaad, fariinta waa laga dhaliiday, laakiin application-kii markaan soo furnay waa taa fariinta weli way ku jirtaa. waa taa fariintii weli waxay ku dhex taallaa application-ka iyadoo laga dhaliiday WhatsApp-kii. okay, qoraal labaad baan qoraynaa. tusaale waxaan qoraynaa good morning baan qoraynaa. good morning ayay intaasaan u dirnay. telefoonka labaad soo fur. adoonba WhatsApp-ka furin, halkan waa adiga arka fariintii baa soo gashay. waa application-ka dhexdiisa, WhatsApp-kii maada furin. haye telefoonka koowaad ku noqo, fariinta ka delete. weli waxaa aragtaan telefoonkii labaad, fariintii way u sidaas aad u akhrisan ka dhaaf fariimaha lagu soo diray ee lagaa dhalido. goodbye.